guddiga loo xil saaray inay baaris dhab ah ka soo saaraan sida uu u dhacay dilka taliyihii qaybta booliska gobolka Hiiraan Korneel Maxamed Macow Xalane kaas oo ku dhintay dagaal maalmo ka hor ka dhacay deegaanka Kalabeer ee gobolka Hiiraan ayaa waxa ay soo saareen natiijo hordhac. guddiga ayaa waxa ay sheegeen in kiiskan loo xirxiray dad lagu tuhmayo inay ka dambeeyeen isla markaana meel wanaagsan ay u marayso baarista sida uu sheegay gudoomiyaha guddiga oo magacaabay madaxweyne Waare oo ah taliyihii hore ciidanka booliska Hirshabeelle Cali Dhuux Cabdi Mahadalle. sidoo kale waxa uu sheegay inay la kulmeen ehelada taliyihii qaybta booliska gobolka Hiiraan marxuum Maxamed Macow Xalane isla markaana la isku afgartay in maanta oo Jimcaha meydka la aaso. dhinaca kale xiriirlayaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 27 Dhamme Maxamed Cabdulqaadir Maxamed ayaa sheegay in baaritaankooda ay ku soo qabteen 6 ruux oo ku eedeysan dilka taliyihii qaybta booliska gobolka Hiiraan isla markaana ay wali baaris kale ay wadaan. waxa uu sheegay in baaris kadib cadaaladda la marsin doono dadka cadeymaha dilka lagu helo ee hadda ku jira gacanta ciidanka booliska maamulka Hirshabeelle kuwaas oo ku xiran xabsiga magaalada Beledweyne. fadlan daawade haddii aad nagu cusub tahay subscribe noo saar si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay dalka iyo daafaha caalamka.